waxaan goobjoog ka ahaa 5 doorasho oo laba ka mid ah waan maamulayay sida u dhacday tii 2005 cadda ku guuleystay maxamed cabdaash ka guuleystay goobjoog baan ahaa sida u dhacday waan ogaa waaga iyada wadanku uu ka soo baxay saad xusuusataan 2001 isku dhacido maartay xilligii dawladdu 3 sano markay dhamaatay dagaal baa dhacay adigu dagaalkaas reer Puntland markay isku dhacaan alxamdulillah rabbil caalamiin waa ka heshiyaan dib kasta oo dhacay doorashadaas cadde iyo maxamed cabdixaashi xildhibaanadii 66 ka bay ku tartameen qaylo badan oo saasina ma jirin tii xigtay 2009 cabdiraxmaan maxamed farwale ku soo baxayeen xogiyihii guud ee baarlamaankan ahaa mar walba guddiga maamulaya sidii kii hadda yaro kale qayladu waa badnay waayo waxa la doonayaa hal kursi dadka doonayaan waa badan yahay haddii xildhibaanada 66 ka taayna dad badan baa danaynaya qofka waayaana wuxuu oranaya cadaalad darro ay ku dhacday keelaana wuxuu leeyahay waxa weeyaan sidii xaq ahayd bay u dhacday horta waa marka koowaad waxaynu xusuusanahay tii ugu xigtayna cabdiweli maxamed algaas ku soo baxayna xogiyihii guud baan isla ahaa waxaan ahaa anaba ka maamulayay tii ugu dambeysay xigtay Saciid Cabdullaahi Denina xildhibaan baan noqday wataan gudoomiye ku-xigeenka ka noqday tan hadeer way goys dadka ay saameysay baa ka mid ahay oo waagi dhaweyd sida u dhaceen waxaad ogtihiin doorashadii waagi dhaweyd dhacday waxaa ka horeeyay sanad in ka badan doorasho leysiyah laga gudbo tan oo doorasho dadweynaha sanadka culays badan iyo dhibaatooyin badan bayna la soo martay finally si kastaba doorashadaasi si kasta loo soo xulay ama si kasta lagu yimaadee doorashada way noo dhacday January bay dhacday madaxweynaha xilka hayay ayaa dib loo doortay qof kasta oo xildhibaan 66 ka si kasta ku soo baxay xor wuxuu ahaa meel wuxuu gelayay sanduuq ah oo dhisan keligii baa gelayay qalin baa saaraa qof dadka murashaxiinta na wuu codeynayay isagayna ka go'aysay inuu u codeeyo cid eegaysay iyo cid maaragtay qalinka haysana ma jirin waxay doorteen madaxweynaha hadda xilka haya ayay dib u doorteen waa jirtay in ay dadku siyaabo kala duwan u arkayay soo dhaweyntiisa tii horena way noogeen laakiin mar haddii reer Puntland ay doorasho dhacdo oo doorashada madaxweynaha dhaco waxa weeyaan waxa xiga oo sidii caadiga ahayd in loo gudbo dawladdaas inay xilka la wareegto deetan waa iska sii haysay inay calaamasaar ku dhaco dabeedna dawladdii oo barnaamijkeedii wata ay gudbiso dadka maaragtay hadii ilaahay yiraahdo ay gudbiso iyada ay ku xidhan tahay wadada ay qaadayso laakiin ma loo baahan yahay sida ii muuqata madaxweynuhu maalintii la doortay ayaantii ugu horeysay anaaba ka mid ah dadkay saameysay raggii loo yeedhay oo wada aragteen sawirradayada annagu madaxweynaha geesaha ka fadhina guddoonka iyagii laba banaankaan u baxnay guddoomiyana waa soo noqday xilkii guddoomiyaha u cararayna ma helin isagoo xildhibaan iyo annagoo laba oday oo soo shaqeeyey ayaa meesha tagnay madaxweynuhu waana soo dhaweeyey wuxuuna yiri waa iska dhacdaa maaragtay adii qadar ilaahina waa ku dhacdaa doorashaduna saameyn baa ka dhalata saaxiibayaal soo dhawaada annagoo aan maaragtay il qabina waa ka soo baxnay runtii markii ku soo dhaafayna idaacadaha adiga maqal lahayd ama suuqan oo ka qaylinayo waxaan u arkayay qof saaxiibka ah inuu fursad helay Ismaaciil waxaan arrimaha qaybtoodna waa shakhsi qaybna waa mowduucda waaweyn ee wadanka yaala marka si guud loo arko sidii doorashada loogu kala qaybsanaa doorashadii way dhamaatay madaxweynihina waa la aqbalay talaabada ku xigta ma loo baahan yahay dib u heshiisiin siyaasadeed waa loo baahan yahay laakiin dib u heshiisiintu waaba bilaabatay waad arkayseen siyaasiyiintii hore ra'iisul wasaarayaashii madaxweynayaashii murashaxiintii intoodii badnayd kulli madaxweynaha way sarkeen qaylo ka soo noqotay ilaa hadda maynaan maqal dadkan in la gaadho odayaasha iyo konton iyo 8 xildhibaan baan banaanka u baxnay madaxweynaha naga ka codsanay bal konton iyo 8 siyaasiyad suuqa ku sii daysay raggi soo celiyo mar wada qadayn oo xalays afiyo ragga dawladda xilka laga siiyo anagu dheedo barleen ku jirnay adeega mareeg swipe account ee bangiga salaam waa adeeg hal akoon oo guud kugu xiraya akoono kala duwan waxa uu ku suurtagelinayaa lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toos ah ugu wareegto akoonka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilliga aad u dooratay